السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقائق ku xidhan channelka Handmade with Asma. Kusoo dhawaada video cusub insha Allah tacaala maanta idinku tusi doono sidee baad ugu samayn kartaa accessories ama weliba accessories ka dhego aad ugu samayn kartaa duntan aad u jeedid adoo ekaysiinaya qaabka xidigta. Accessorieska waxaa laga sameeyaa runtii waxyaabo badan. Waxaa laga sameeyaa macdanta oo kale, waxaa laga sameeyaa xadhkaanta, waxaa laga sameeyaa plastic oo kale, waxyaabo badan baa laga sameeyaa. Injirka laga sameeyaa. Accessorieska sidoo kale waxaa laga sameeyaa duntan oo qaab crochet ah oo kale aad u sameynaysid sida aan idinku tusay sawirkii ugu horeeyay videoga. Kuwaas oo aad ka sameyn kartid qaabab qurux badan. runtiina waxa weeyaan farsamo gacmeed aad yacni looga jecel yahay wadamada qaar oo aad yacni suuqyo badan leh. Marka haddii aan bilowno insha Allah أي نوع حرق أدهيستيد أيد كينيسا ما هم مهم يعني إنه حرق إنه كلياتي هاي دونت أنا رنتي وحويان دونت كلياتي يعني عيلتها هاي دتك بدنا بإني ودن ككهلان إن مركب واحد سمينا مركب بلعبينه بين جوب أما ماجيكال سيركل واحد كوسو شرحي عشرانتي برشة كروشيه إن مركب دي بدو نكون كرتا سياسن كوحنا ماجيكال كاني إن كربان أوكعينا hal silsilad oo ah taaga ama irtifaaca ama jooga aan u sameynayno qursada aan ku shaqeynayno oo ah qursada half-tiirka. Marka waxaan sameynaynaa goobadii waata magical circle waataas goobada dhexdeeda aad u jeedid waxaan ku sida idin muuqato waxaan ku shaqeeyay qursadii ama waxaan ka wadaa wareegii magical circle ama goobadii musaxirka ahayd gudaheeda waxaan ku shaqeeyay 15 stitch ama 15 tuliin oo half-tiir ah. 15 waxaan ugu shaqeeyay waxa weeyaan waxaan doonayaa inay xidigtu noqoto xidig 5 ah يعني 5 gees ka kooban halkii geesna wuxuu ku fadhiisanayaa 3 silsiladood. Marka 15 marka 3 u qaybisid waxay ku siinaysaa 5 oo 5 gees ah يعني 5 gees oo mid walbaaba uu ku fadhiyo 3 silsiladood. waxay idin ka fahmi doontaa insha Allah markaan sharxayo waxaan ka wada yani wuu ku fadhiisanayaa marka dhameysid yani goobadaadu iskuma xidhnaanayso. marka sidii aan idin sheegay marka dabteenad goobada isku xidhid waxaad sameynaysaa dacalka yar ayuun baad jiidaysaa si ay isugu soo ururto shaqadaadu saas isugu soo ururaysaa weli laakiin ma xidhna. tamaam markaad xidhaysid waxaan sameynaynaa qaybtan uu ku jiro ay ku jirto irbadu ayaan waxaan ku xidhaynaa silsiladii ugu horeysay oo taas ah ee aan sameynay. waxaan ku xidhaynaa qursada siibata iyo qursadaha kala duwan ama tuliinada kala duwan ee loo isticmaalo crochet-ga casharaan gooniya mid kastaba ku sharxay marka qofkii doonaya dib ugu noqon karaa. hadda imika aan shaqada inaga yar gaabiyo waxaan kor u kacaynaa isla meeshii horta waxaan taaganahay aan ku xidhnay qursada siibata يعني wax silsilado kale uma aanan gudbin waxaan kor u kacaynaa 1 2 عفوا 1 2 3 4 5 6 7 meeshii aan ku taagnayn laftarkeedii ayuun baan waxaan kor u kacnay 7 stitch u kacnay. waxaan sameynaynaa halkan hoosaan kasoo tirinaynaa tan ugu hooseysa sida aad u jeedaan silsilada ugu hooseysa waxaan ku shaqeynaynaa tiir 2 wareeg leh. kan ka sareeyo waxaan ku shaqeynaynaa tiir 1 wareeg leh. kan waxaan ku shaqeynaynaa number 3 markaan halka hoose kasoo tirino waxaan ku shaqeynaynaa half tiir. tan ka horeyso waxaan ku shaqeynaynaa buuxin. tan kasii sareyso waxaan ku shaqeynaynaa qursada ama tuliinka siibta. marka maadaama aan halkaa marayno wax kasii sareeyo 1 iyo 2 waan ka boodaynaa. marka 1 taas silsilada koobaad aan ka boodnay tan labaad baan ka boodaynaa waxaan tegaynaa silsilada saddexaad waan dhex gelaynaa labada dacal ee silsilada waxaan soo jiidaynaa dunta waa qursadii siibata ayaan ku shaqeynaynaa waxaan ka soo dhex baxaynaa in isla wareegii uu ku jiray ay ku jirtay irbadu
haddii aan kusoo celiyo halka hoosaad ka tirinaysaa silsilada koobaad ee halka hoose laga bilaabayo waa taa idiin muuqata waxaan ku shaqaynaynaa toliinka tiirka labada wareeg leh ta ka sarreysa markiiba waxaan ku shaqaynaynaa toliinka tiirka halka wareeg leh ta kasii sarreysa waxaan ku shaqaynaynaa toliinka haaf tiirka ta kasii sarreysa waxaan ku shaqaynaynaa toliinka buuxbuuxinta ta kasii sarreysana waxaan ku shaqaynaynaa toliinka siibta oon hadda galnay sida ujeedaanba marka silsilada markiiba ku xigto oo tan ah silsilada ayaan dhex gelaynaa kadib xadhigan soo jiidaynaa kadib waxaan ku shaqaynaynaa toliinka buuxbuuxinta wuxuu kaga duwanaya kasiibto markiiba waa laga sii saarayaa tan kan lagama saarayo duntaad soo wareejinaysa kadib labadaba waad kasoo saaraysaa okay waxaan maraynaa tii ku xigtay oo ta saddexaad ah tan saddexaad waxaan ku shaqaynaynaa haaftiirka waxaan sameynaynaa hal mar baan kusoo wareejinaynaa dunta waan dhex gelaynaa gursadaan dhex gelaynaa ama silsilada labadeeda dacal then duntaan soo laabaynaa waan soo jiidaynaa waxaad ku samaysmaya 3 wareeg duntaad haddana soo jiidaysaa saddexdaba adoo kasoo saaraya tamaam laba silsiladood bay hadhay silsiladan kusoo xigta haaf tiirka tan ku shaqeeyay ayada waxaan ku shaqeynayaa tiirka halka wareeg leh marka hal mar baan kor u qaadayaa hal mar baan xadhiga kusoo wareejisanayaa waan dhex gelayaa irbad silsilada cafwan labadeeda dacal kadib waan soo jiidayaa waxay samaysmay 3 wareeg duntaan soo wareejinaya haddana laba keliya tan kasoo saarayaa haddana duntaan soo wareejinaya labada kale ayaan kasoo saaraya waxaa noo hadhay markaas silsiladii u dambeysay oo taa ah oo aanan u gelin waxaan ku shaqaynayaa tiirka labada wareegle marka waxaan sameynaya 1 2 jeer baan ku wareejiyey waxaan dhex gelayaa silsilada waan soo jiidayaa dunta waxa ay samaysmaya 4 duntaan soo jiidayaa haddana labaan kasoo baxayaa waxa ii hadhay 3 duntaan soo jiidayaa laba keliya tan ka baxayaa waxa ii hadhay 2 haddana mar saddexaad baan dunta soo jiidayaa intaba labada ii hadhay baan ka saarayaa marka waxaad samaysay dacalkii ugu horeeyey xidigta waxaan sameynaynaa 1 2 3 waxaan gelaynaa silsiladii koobaad wata silsilada labaad wata silsilada saddexaad yacni silsiladan aan ka kacnay oo tan ah saddex waxaad ka boodaysaa 1 2 ta saddexaad baad gelaysaa silsilada saddexaad sidaad u gelaysaa waxaad gelaysaa silsilada labadeeda dacal ee hoose waa kaa ayaad ka hoos maraysaa duntaad soo jiidaysaa kadib waxaad ku xidhaysaa munzaliqa ama warsada siibata saas kuugu ekaanaya waa dacalkii koobaad xidigta saas kuugu ekaanaysa shaqadaadu haddana sidii baad sameynaysaa yani waad soo repeat garaynaysaa shaqadaadii dhammayd 1 2 3 4 5 6 7 7 kor u kacaynaa sidii oo kale ayaan ku celinaynaa tan ugu hooseysa ama halka hoose haddaan kasoo bilowno silsilada ugu horeysa waxaan ku shaqaynaynaa tiir 2 wareeg leh ta kasii sarreysa tiir hal wareeg leh ta kasii sarreysa haaf tiir ta kasii sarreysa buuxbuuxinta ta kasii sarreysana waxaan ku shaqaynaynaa qursada siibata markaas laba soo hadhaya xagga sare labadaas waan ka boodaynaa tan iyo tanba waan ka boodaynaa tan saddexaad baan gelaynaa waxaan ku shaqaynaynaa qursada siibata oo qaabkaas lagu shaqaynayo then haddana ta ku xigtaan gelaynaa waxaan ku shaqaynaynaa qursada buuxbuuxinta ilaa qursada buuxbuuxinta xadhigaa lasoo jiidaa then waxaan gelaynaa saddexdii qursadood ee tiirarka lagu shaqaynaya haaf tiir baa u horeeya hal mar baan soo wareejinaynaa waxaan gelaynaa stitchka ama silsilada dhexdeeda waan soo jiidaynaa waxaan kusoo wareejinaynaa xadhiga saddexdaba anagoo kasoo baxayna waxaan sameynaynaa hadda tiirka hal wareeg leh hal mar baan kusoo wareejinaynaa dunta waan dhex gelaynaa waan soo jiidaynaa haddana duntaan soo jiidaynaa laba keliyaata ama laba wareeg ayaan ka saaraynaa labaa noo hadhay haddana markaan soo wareejinaynaa labada kale ayaan ka saaraynaa waxaa noo hadhay tii u dambeysay oo taa ah oon ku shaqaynaynaa tiirka labada wareeg leh marka waxaan sameynaynaa 1 2 jeer baan dunta ku wareejinaynaa dhexda ayaan ka gelaynaa silsilada duntaan soo jiidaynaa haddana mar kale soo jiidaysaa dunta labaad ka baxaysaa haddana mar kale soo jiidaysaa labada ku xigaad ka baxaysaa laba kaliya taa kugu hadhay haddana mar kale soo jiidaysaa labada u dambeeyay ayaad ka baxaysaa yani 3 jeer oo min laba ah ayaad ka baxaysaa then duntaadu halkay ka kacday waata
ama shaqadaada halkaad ku shaqeynaysay stitchkaasi ku shaqeynaysay waxaad tirinaysaa 1 2 3 stitchka saddexaad baad markaa gelaysaa adigoo labadeeda dacal halka hoose ka gelaya oo ku xidhaya gursada sii siibata marka waa ka dacalkii labaad ayaad samaysay haddana sidii baad shaqada ugu celinaysaa 1 2 3 4 5 6 7 sidii aan u tirinaynin baan u tirinaa 1 iyo 2 baan ka boodaynaa taa saddexaad baan gelaynaa waxaan ku shaqeynaynaa munsaliqa ta ku xigta ama qursada sii siibata ta ku xigtaan gelaynaa waxaan ku shaqeynaynaa buuxin mar baan ku wareejinaynaa ta ku xigtaan gelaynaa waxaan ku shaqeynaynaa haaf tiir mar baan ku wareegaynaa oo ta ku sii xigtaan gelaynaa waxaan ku shaqeynaynaa tiir hal wareeg leh laba jeer baan ku wareejinaynaa ta ku xigta ay u dambeysa ayaan gelaynaa waxaan ku shaqeynaynaa tiir laba wareeg leh 1 2 3 marka waxaan tirinaynaa 1 2 3 saddexdaas silsiladood ee ku xiga shaqadaada waa ta 1 2 ta saddexaad ayaad ku xidhaysaa sidaasay kuugu ekaanaysaa markay saddexda dacal samaysid waxaan sameynaynaa dacalkii ku xiga anagoo soo celinaynaa dacalkii afraad baan sameynaynaa anagoo soo celinayna keliyata isla stepskii sidaa waxaa ku samaysma xabadii ugu dambeysay 1 2 3 3 waxay noqonaysaa taa aad ka kacday dacalkan ugu horeeyay ayaad ku xidhaysaa adigoo halka hoose irbada ka gelinaya dunta labadeeda dacalna kaa sareeyaan kadib waxaad ku xidhaysaa gursada siibata kadib shaqadeena waan jaraynaa duntu halkii ku jirtay keliyaad waad soo jiidaysaa si ay uga soo baxdo shaqadaadaad isku hagaajinaysaa duntan waxaan sameynaynaa waxaan ku qarinaynaa shaqadeena ayaan xagga dambe kaga qarinaynaa sidaas waxaa noogu dhamaaday
sidaad u samayn kartaa xidigta runtii way idiin muuqataa. waxaan rajeynaya insha allah inay aad iyo aad u fududahay. waxaad u isticmaali kartaa runtii waxyaabo badan, maaha daruuri keliya inaad u isticmaashid accessory ahaan, laakiin maanta anaa jecel inaan idin tuso qaabka aan accessoryga ugu sameynayo. tan ayaan sameeyey iyadana hadda ka hor, sidaa idiin muuqato. dabcan tani waxa weeyaan waxay ka kooban tahay 6 qaybood, halka tani ka kooban tahay 5 dacalo keliyaatay ka kooban tahay. marka fi nihaaya yani adiga ikhtiyaar kale sidaan kuu sheegay, sidaad u xisaabinaysidna waan kuu sheegay. hadhow toole waxun baad sameynaysaayun bahalahan yaryar ee dhegaha lagu xidho. ma garanayo runtii in wadanka meel laga hela ay jirto, laakiin waxaad sameyn kartaa dhega yaryar oo iska rakhiis ah haddaad helaysid waad soo iibin kartaa. haddii kale dhego adiga aanad u baahnayn baad keeni kartaa. imka runtii yani bahalkan waxaan kasoo saaray dheg anigu aan lahaa oo aanan u baahnayn. dhegaad adigu aanad u baahnayn ama aad yani qadiim noqday ood iska daysay ayaad soo qabanaysaa, kadib waad kala bixinaysaa. yani haddaad irbad haysatid, haddaad waxaan ka wadaa midi afkeedu yar taagan yaad haysatid. haddii kale bahalkan oo loo isticmaalo sidaan idiin sheegayba. haddii kale waxaad isticmaali kartaa kelbadan ama biinsadan yar oo loogu talagalay iyadana mathalan oo kale in loo isticmaalo waxyaabaha accessorieska oo kale. way fududahay wayna yar tahay. haddaad taasoo kale soo heshid taasaa kuu fiican, sababtoo ah waxay kuu kala furfuri kartaa waxyaabaha yaryar accessorieska. marka waad isku simeysaayun, kadibna waad isku giijinaysaayo si aanu kaaga furmin. marka waa ka saasaad u sameynaysaa final productiga. haddii aad doonaysid inay dunku ahaato yani taabashadeeda dunta ah haddaad yani okay ku tahay waa is okay, waa lagu xidhan karaa. haddii aad doonaysid inay yar adkaato waxaad keeni kartaa guluuga ama guluugan loo isticmaalo wood guluuga ama hirar khashab. waxa weeyaan guluugan cadaanka ah, habagtan yani waa dareere cadaan ah. taasoo kale waad keeni kartaa, sida imka tan oo kale aan ku sameeyey. tan runtii yani haddaad dhac bay odhanaysaa, maqlaysaa yani way yar adag tahay. waxaad ku adkeynaysaa, waxaad keenaysaa hirar khashabkaasaad keenaysaa ama guluuga waxaad sameynaysaa waad dhex gelinaysaa. marka hadhow toole maradu way cabaysaa xabagta, laakiin kama soo muuqanayo wax cadcadaana ma yeelanaya, madowgeedaas iska ahaanaysaa. laakiin way adkaanaysaa sidii wax qalafsan oo kale kuu noqonaysaa. tanna waa maro waa caadi. marka labada adigu saa jeceshaada ka dhigan kara. haddaad san jeceshahay ama haddaad san jeceshahay, sidoo kale waxaad awoodaysaa inaad ku qurxisid wax sida tan oo kale aan sameeyey. yani dhexdeeda kuul ayaan ku dhajiyey. markaad kuushii ku dhajinaysid waxaad isticmaalaysaa samaqa ama bastooladan yar ee xabagta dhalaalisa. bastoolada haddaanad helaynin waxaad isticmaali kartaa aya nooca shamac baad keenaysaa, dabkaad ku dhalaalinaysaa. markuu dareero waad ku dhex shubaysaa, kadib waad ku dhajinaysaa. yani si adiga kuu fudud kolba. haddii aad caadi sidaasoo kale ka dhigtidna waa qurux badan tahay. marka insha allahu tacala waxaan rajeynayaa inaan videogan aydin wax ka faa'iideen oo aydin sameyn kartaan xidigaha noocay doonaan ha ahaadaan. waxaan rajeynaya insha allahu tacala videogan inaydin aad iyo aad wax uga fahanteen. insha allahu tacala inta videoga kala soo gelinayana waxaan idinkaga tegayaa ha ilaawina subscribe-ka, like, share, kuna soo biira familka Handmade with Asma. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.